الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما يسترددك وح سؤال الله يرام بالغ سوداي كلا نوع قاركودنا يراك كيهين سؤالها وحا يراي علم قول برطه marka cilmiga aan barano insha Allah kulli su'aal lawaayma laakiin haddana marka aqoonta diinta iyo shariicadu ay korodhaba su'aaluhu way sii yaraadaan marka jahligu sii batana su'aalaha la isweydiinayaa batawliba kuwa basiidka ah tan soo koobkoobo qofku marka uu soomay inuu dhiig iska shubo ama istoobo ama dhiigii shaybaarka iska qaado way u banaantahay culimadu saasay u badayn waxay daliishanayaan xadiidka ibn Abbas saxiixa احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم نبيgu wuu istoobay isagoo sooman marka dhiigii la shubay toobinkiina waa isku mid hadduu laakiin qofku daciifayo oo soomkiisu khatar galayo inuu iska daayaa wanaagsan habeenkii shubo haddaanu qofkani nafbaxayn loo shubaya oo markaa dee nafku badbaadinaya indhaha dawooyinkan dhibiqdhibiqa ah ee lagu shubayo وحدبا ملها وايو العين ليست منفذا مفتوحا إلى الجوف إيش ومفرنا علوش سؤال شلبا كليها إن لما يرو يصومكي مركا وقفكي قالوا إن كليه لو ما يرو يسكا أفرافي عن لكن هدو سومي كرايو كليها لما يرو لماذا حيلاهين يا ده كل دراسات الدكاترة تنا لا فرصنايو وفي مركز كليها الله ما يريا وحلا بدر مادوين مغذية هي مقوية وحيا بس إذا كلو كوست كلا حوشينية مثل كي راشين كلا وقلا دي قلا راعية استدراد ده ما يرستاسي ويتشبينيسا صومكي مادام مادوين كاسلا صعدا السوق اللي يقف قفكي هدي أو أفرا أنتي أن قرحدو دعين oo ay u cadaato inuu afuray iyadoon qoraxday dhicin maalinka inuu soo qaleeyaa waa waajib wuxuu khilaafay qowl Allah ta'ala thumma atimmu siyama ila al-layl habeenkii iska cuna oo iska caba marka waagu bariyo cunitaanka joojiyo ilaa qoraxdu intay dhacayso aayada kuma amal falin laakiin hadduu gafahan ay uga dhacday oo uu ismootiyay dambi kuma laha maalinkaas qofkaas uu soo qaleynaya كفارة جود بالله يقول يا شيخ المحجيت كي بشهر رمضان لبس أنا نوي كسو ورجين أفضينا ما بتشوكته أوانو كلا تجنا مدعيا ما مدعيا سامر ذو حيران كشي مدو جوابه أدي كشي اللي يقول لي هاي وقفك مدرر أكل مغنيدين يدي بمباك تعالى كشي جاي لهينا كآدمه لميدي إلا النبي وحول فدين الله يحق أن يغضى دينت إلهي وكهبون إلا بحياة بني آدم كما كهبون حتى توقف كدينته ولا جب حنايا حجك يا مهرك إن مهركي حج لقدر جاوا إسكاب بنانته لو هذا قفنا وحق بنانه كله هدي ويسورابي ويدين حجسيو إن يبدلته ويكهشين دولا حجك أنتم مريا أنت أسو مريا دينتي وكاشيدي sidii sabab qofku hadduu xaq leeyahay oo manfaco qofkan iyo dheef uu ku leeyahay dheeftii uu sarifan karaa kaash buu ka dhigan karaa marka tan oo kale qadarkii lagu xajayay xoolo ahaan bay ku qaadan kartaa aniga oo suxuranayo afka ku haya la aadaamay miyaan si liqliqaya mise waan joojinaya ma waa joojinaysa waa ka ilaahay wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr cuna oo caba habeenkii jiro waagu cadaado markuu cadaado joojiyo way hadiidkii saxiixaan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inka bilaal la yiraahdo habeenkood dadan buu adaamaa iska cuna abdullah ibn maktum asxaabiga ay dhahalay markuu adaamo joojiya marka waxa lagu joojinaya waa waagu cadaaday wataana waxa daliilaa adaanka labaad kala duu muadinku adaamo iska tufo halka ku joojiyo ka cadayo su'aasha kale oranaysa dilaal baan ahay dadkana wixii aan u iibiyay qayb baan ka qariyaa ma qaadan karaa ma waa xaraam waa dulmi qofka badeecadiisa aad u iibinayso lacagtaad siisa isaga leh aduguna waxaad xaq u leedahay mushqaayad
iyo ujra iyo dilaala ka heshiisaan waxaagii 90000 baan kuu soo siiyey aniguna boqolkiiba hal baan leeyahay ama labaan leeyahay wayna ka heshiisaan marka horeba hawl baad qabanaysa dilaalintu mararka qaarkood dilaal oo dhan ma wada ahay qaarkood dadkan xalaal miiranayn marna waxay qariyaan marna qofka dilaalkay ku qabsadaan ku qabso ku qadiimayside marka inuu wax qariyo waa dulmi iyo xaraan oo xoolihii qofku badbar goosatay 9 kan alaabtiisa lagu iibiyay isaga iskale aduguna ama bilaash ugu iibi ama mushqaayadaada ka heshiiya nabiga calayhi salaatu wasalaam in curwo la yiraahdo u soo iibiyay neef uu ku odxiyaysanayay markaasuu dhexda la baayacay markaasuu sii iibiyay neefkii haddana mar labaad buu neef kale u soo iibiyay lacagtii uu nabigu u dhiibay iyo neefkii uu ka doonayba uu keenay oo faa'iido soo sameeyay faa'iidadii iyo neefkiiba nabigu uu ka gudoontay waanu u duceeyay dee wuxuu oran lahaa intan adaa iska leh wixii kordhay adaa iska leh iyo waxaan waxaygii ka soo baxay marka qofka wixii lagu iibiyay isaga iska leh haddaad wax qarisana waa xaraam iyo dulmi sida saxdii waxa weeye labada qofeed wax kala iibinayso xataa inaad u sheegto waxaagu wuxuu yahay oo tiraado anigu dilaalkaygu waa intaa waan idin qaybiyay ama hebel baan la socdaa waxaa la qarinayaa la iska daayo si aanay dadka maalkooda uga wasakhaynin xoolaha agoonta ma laga sadaqayn karaa maya xoolaha agoonta waxa laga bixin karaa un wixii iyaga ku waajiba ayaa laga bixin karaa sida kafaara gudkii iyo sakaat fidriga iyo sakadii xoolaha iyo laakiin sadaqa ma leh sadaqana lagama qaado xoolaha agoonta siyaarana lagama qaado wixii walaa taqrabu maal al-yatiim illa billati hiya ahsan xoolaha agoonta ha u dhawaanina buu lahay ilaa wixii ahsana mooyaan wixii iyaga u danahay wixaan iyaga u danahay waa laga daynayaa marka wixii aad adigu leedahay ka sadaqaysa hadaad tii caruurta hooyadood laakiin xoolaha agoonta u daa intood jibootood marqaanta dambi ha ku dhicin haddaad bixisan adaa lagu leeyahay inaad u soo celiso oo aad u magdhawdo xoolaha agoonta marka axankii iyo fidihii iyo cuncunkii kala duwanaa magihii iyo siyaaradii wadaadku ka qaadayay iyo waxa soo dhan qofka qaatay waa gashimadu waa iska soo celi weey wala xisaabinaya imika haday marka waalidku dhinto dadka qaraabada intay yimaadaan xoola ka qalqalaan maalkii agoonta intii qalqashay un baa la leeyahay kaana xisaab xil male xoolaha waxba agoonta kama go'aane dadkii niiri fideeyaa xambaanu sameynayna soo celiya marka dadku way iska dayn lahaayeen baan malay hadii la xisaabtamo qaarkood tobanaan ariya laga magdhabo mushkilada kale iyaduna halkan lagu sheegay waxa way sina dhacday Ramadaan habeenkeedii waa laba jariimadood oo isa saaran ama laba dembiyo isa saaran dembigii sinado aad u weynaa kabaa'irta kamid aha iyo xurmadii Ramadaan oo qofkani uu meel kaga dhacay laakiin ilaahay tawbada waa aqbalaa qofkaas hadduu tawbad fiican tawbad keenay ilaahay ha u soo noqdo ha tawbad keeno tawbaduna shuruuday lahayd waxa kamid ah inaan dembiga ku noqon gacanta ka qaado ka murugoodo waqtigiisii tawbada uu taagan yahay marka in laga aqbalay inuu rajaynayna waxaasina waa wax aad u foolxun qofku inta uu iimaan leeyahay waxa sinada la yiraahdo iyo dilka iyo tuugada iyo kuma kacabu nabigu xadiidka saxiixa sida ku sugan intuu iimaan leeyahay la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min qof iimaan leh masinaysto qof iimaan leh qof madila mu'mina qof iimaan leh wax ma hado xadiidka saxiixa nabigu saasoo ku marka culimadu waxay yiraahdeen hadaa sidoo noqonaya de iimaankii baa laga siibaya iimaanku uma qalmee kor baa looga qaadaya sida dalaayada inta uu silan yahay ee uu qurunka booshaaqayo marka xumaanta leedahay taasina muujinaysa marka aad looga fogaado su'aashan kale waxay leedahay ninku xaaskiisa ma u diidi karaa taraawiixda hadduu dan u arkaha haday jibooto oo ciyaalka iyo qaarnaaska shaqayaan qaarna dadka ku dhacayaan ay ka cararayso odaygiina halkan kaligii wuxuu sheekeeyo maaweeliye ulaaya dee cibaadadeedu waxa weeye inay amaanada halkan taala ku cibaadaysato gurigana iskaga tukata intay karayso asalkeedaba oorida muslimada ah shaqadeeda asalkeedu waa guriga waa ilaahay baa wuxuu waqarna fi buyutikun sheekh baa wuxuu qoray kitaab la yiraahdo al-mufassal fi ahkam al-mar'a waynu 12 mujallad oo ruux dumara wixii ku soo arooray in nusuus buu ku soo jamcinaya marka wuxuu leeyahay culimada muslimiintu waxay isla waafaqeen asalka shaqada ruuxa dumarka inuu guriga yahay wixii ay uga baxdaaba waa duruuf
sidaa daraaddeed hiblaayoy halkan ku cibaadaysa buuri iyadana waxay tidhi mee halkaasaan tegayaa culimmadu qur-aanka aadka u akhriyaya baryuunbay ku leeday laakiin qasabkuma leh macnaha inay dee isaga ka dhammaystay ka heshiiyaan mooyaane amarkiisuna waa waajib taraawiixduna waa sunne waxaa la mid ah tii waalidka dhallinyaradii hablaha ahaa maala waalidkii cawradoodii iyabuu u baqayaan dee waa dhibka soo gaari kara habeenkii tahajudka hiblaaye ha tegi buu marka ayay tidhi hooyadeed baa tidhi ama aabbaheed baa marka ma tegi karo qofka amarka waajibka iyo amarka ninku iyo amarka madaxdu kolkaanay macsiyo ahayn waa waajib in la khilaafana maaha marka sunne loogama guuri karo sunne loogama tegi karo marka saasaynu baraarujin lahayn laakiin wax dhibi haddii aanu jirin oo baylahay aanay jirin cawro iyo ceeb muuqanaysa iyo akhlaaq xumo iyo edab darre iyo asturnaan la-aanna aanay jirin in dumarka loo fasaxo weeyaan inay ku cibaadaystaan masaajidada mar haddii shuruudaha laga helay hawsheedii way u habaysan tahay asturnaantii waa jirtaa iyo aadaabtii wax dhibihi ma imanayo markaa si aanay guriga ugu cibaadaysanayn bay ugu cibaadaysanayaan masjidka ee hadhii dadka ha ku daydaan khayrka wada in la daayo weeye waayo nebigu wuxuu uhi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah masaajidada ilaahay addoommaha ilaahay ha u diidinee dumarka ah marka sida la isku waafajinaya xadiidkaasi u wakhtiga lagu fasirayaa waa wakhtigaan dayacaadi aanu ka jirin hadday dayacaadi ka jirtana daliilada kalea lagu camalfalayaa oo sideedaba daliilada waa la isla akhriyayaa si loo jamciyo su-aashaa odhanaysa ruuxa dumar ee qur-aanka ma akhriyi kartaa ma weysaysan kartaa iyada oo madaxeedu bannaan yahay jawaabtu waxa weeye gurigeeda dhexdiisa hadday fadhidahaa waayo ciddii cawrada laga asturaya ajaanibti ma joogaan shardina uma aha weysada iyo qur-aan akhriska inuu qofku madaxiisu asturan yahay warkuba intaasu ku urursan yahay laakiin madaxa waxaa laga asturayaa dee xijaabka laga qaadanayaa dadka ajaanibta ah ee aan xalaasha ku ahayn ama maxramka ku ahayn su-aashaa odhanaysa waxaan ahay ruux dumara oo jaqsiinaysa qallana waa laygu leeyahay maxaa yeelayaa waa arrin runtii su-aalaha aada ugu badan soomaalidana hawl weyna u taalla ah weliba reer magaalka reer miyiga iyo qurbajooggu malaa waa ka sahlan yihiin magaalooyinkeenna dadka jooga oo reer magaalkii ma kala dhammaanayo sanad walba way dhalayaan dabada isugu qabanayaan haddii islaantii la yidhaahdo heblaayoy malaha in la yar kala fogeeyaa fiicanoo farsamooyin dhakhtarku yaqaanaa jiree si aad adiguna u nasato ubadkuna u kala koraan diintaba waad ka baxday odhanaysa iyadaaba diidaysa waayo ubad ilaahay soo wadaabaad hor joogsatay waa mafhuum ku qalloocday oo qofku markaa aqoontu dee aanu garanayn wax ku qalloocdaan hawsheeda ay leedahay nin aanu saaxiib nahay baa xaaskiisii maalin dhaweyd dhasho waxaan ku yihi waa kii imisa tobnaad waxaan moodaya inuu igu yihi kii 17aad ama 15aad welina way wadaaye wuxuu waxaan ku qancin kari lahaa iska naso laakiin waxaan u malaynayaa uri daniba inay soo ridi haata sida u nafaqo beeshay marka la eego marka caafimaadkii cibaadadiiba halkaa way ku dhib qaabaan wax dhiba ma laha shareecada haddii tandiim la sameeyo shareecadu waxay diidaysaa tacqiimka in qofkii dhasha laga jaro oo laga baloogareeyo ayay diidaysaa laakiin in la nidaamiyo oo siyaabahan dee xalaasheen dhibka lahayna dhakhaatiirtu yaqaanaa lagu nidaamiyo waa sax weeye oo qofkii dhowrkii sanaba mar uu dhalo dee waalidkeenna carruurta waxa lagu kala korin jiray in naaska la jaqsiiyo taana waxaa duulaan ku soo qaaday mujurucan xun baal xun oo masaasada ay yidhaahdaan oo markiiba afka u gelinayaan taasaa naaskii kharibtay markaa naaska ha la jaqsiiyo ciddii aanu ka guraynin carruurta ha loo nidaamiyo hooyooyinku ha nastaan ha cibaadaystaan almuhim ruuxa dumara inta rajo laga qabo inay soo qallayso raashin ma bixinayso 8 bilood marka Ramadaan laga soo wareego dee way soomi kartaa ilmihii socdo wax cuno marka qallaha ha bartaan dumar dib baa jiro oo waxay xusuusanayaan Ramadaanta kale markay soo dhawaato ama la yiraahdo soomtii baa soo gashay ama imika la soomaya marka qallaha waxa qof kasta oo qallayn kara
حتى كبكنها هذا كبكاوحو راشن بحين يمركو كقوست قلها يدنا كابكتون بيلاميت عبادتنا وحا لوgu talagalay in adoonka lagu tijaabiyo tijaabadii baan dadkii weydaartaan ay ka baxaan maaha marka dumarkaasi hay iska sugaan qallaha markay qallaha ka quustaan bay raashin bixin karaan su'aashan kale waxay leedahay deyn baa qofigu lahaa mana garanaya maxaan yeelaa waxa ka horeeya dadku hay iska bixiyaan deyn Soomaalidu waxay yiraahdaan amaana kugu raagtay yadaabaad moodaa qof baa deyn lagu leeyahay iskeera macaansanaya dadkiiba siin maayo xoolahoodii marka dambena kiilaha haduu weydiiyo wab la yaabaya هذا قانونات بدن إذا أقولنا يدك كذا ديما يسكون له وردين تبصيبوا إنك كمت بلايين كنا بيقول لها كم مجن قلي أي دين تكمت قفك الشهيد كوح والبوا على قد عفوا يبو دين تمو يعني دين تلا جمر عفوا وانك إلى وإحنا بكم مجن قلي شري لها من المغرم والمأثم دم بيجي الدين ما عشان لها كم مجن قلي مركا كود ذال واحد كل قيسنا يسان ونقضى واحد لا ذا هاي واحد استعماله يسوي واحد لا ذا حتى هالكد هجبت كجل لهاي أذوق بريق يلا أكون كيسكرقه وضدك هذه الشيء هجبتها واحد جلية وأيسليه ده نفط أنا كحشين كري نفط كحش يا أكون كاجا يسكرقه أنت وحلقوه يلانها المهم ده أنت قفك لها يدح لياش يسيبه هداد ويدي صدقة وقبح كلا صين لكن كوريسين شقوين كأذق markay ramadaan ku soo beegmaan ma la afuri karaa ma lama afurayo al-a'maal shaqa la takunu sababan li iftar as-saim qofka sooman inuu afuro shaqab culus oo hay daraadeed uma banaynayso laba mid baa u banaan inuu habeenkii shaqada loo bedesho leerka loo siraato kambaniya badan ba habeenkii shaqeeya waa suuragal waxa kale oo suuragal shaqada in la soo koobo oo qaboonooyinka la shaqeeyo qaboonada hore iyo qaboonada dambe waxa saddexaad islaamku uu ogol yahay hadii de shaqadii galo ku jiro markay naftu ku qabato gaajiyaha raad waad iska cuni maalinta laakiin laguma oranayo hasoomi haday gaajo naftu ku qabato iyo raad dhima lagu oran maayo waad iska cuni maalinta laakiin asal ahaan laguma oranayo hasoomi su'aashan kale oranaysa qofku hadii uu wax cunayo uu wax cabayo isagoo sooman إلا برارجيا مواجب مسوا سنة وسنة وحيسوق ليس وتعاونوا على البر والتقوى سما فلكي على كعبس جيسوق عشرة قفكي هردينا الثلاثة وتوسيس كي عندا عني أما عبي بشر رمضان إلا وسنين تلاك الده وحيكمت هاي وناقل إسفري كمت كان يسوق أرانا يهي برارجيني نو قلدين وحموقتين وهمومتي ولقبه وأنا الشيطان كهارين مرادو لي هاي كل هدي لا يفصحي بان كوضو قالت بو فهمي وحوي انت عذر دارك لا ده وانت عاد لو سنت هاي اما انا درين سنين صومنتها marka ila baraarujiya waa sunni ruuxa dumarhi marka ay xajka ku jirto ama soomka kiniinkan kala fogeynaya dhiigga caadada ma isticmaali kartaa waxay ku isticmaali kartaa laba sharti inuu dhakhtarku sheego inaanu dib ku keenayn iyo inuu ninkeedu ogol yahay hadduu ninkeedu yiraahdo ha isticmaalin way joojin hadduu dhakhtarku yiraahdo dhibaato badan buu kugu keenayaa ha isticmaalina way joojin oo de la darara wala dirara buu nabigu leeyahay qofku inuu naftiisa dhiba looma ogola iyo inuu dadka kala dhibaba marka hadduu dhibamanayo ama saygii diido ma isticmaali karto haddaan labadaa midna jirin way isticmaali kartaa waa se laga fiican yahay واستعمالي كرتا واسل في عينه هذا استعماشنا صونكي حجكي وانصحيا لولا ولا في عينه قف حالتي سعاده قاين كسعودوي الطبيعي هذه يتر مواد كلنا استعمالها كيميكال كا دي maxay soo kordhinayaan hormoonadii bay wax ka bedelayaan iyo qofka ee caamadiisa iyo farasaadku jirku soo saaray taas marka waxay keenaysaa inuu marka dambe khalkhal xagga caadada ah ku dhaco oo iyadii cibaadadeediiba uu wareeriyo marka qofku sidiisii caadiga ahaa inuu ku socdo weeyo ayaamihii ka tagayna uu hadhow soo qaleeyo su'aasha kale oranaysa xaaskayga baan la ciyaaro biyo taranka iga yimid gefna waad ku dhacday ka toobadkeen maalintaana soo qalee way kala duwan yihiin galmada iyo biyo ka yimaada hadee biyo qofka ka yimaadaan soomkii uu ka jabayaa mar hadduu ku xadgudbay oo isagu sababta uu lahaa
toobadina waa ku waajib laakiin hal maalinkaas uu soo qaleynaya ka tagay qofku laakiin markuu galmo buuxda sameeyo de iyada waa maalinkaana waa lagu leeyay toobadina waa ku waajib kafaara gudkiina wala imanaya inuu 2 bilood soomo haduu kari waa in raashinkii 60 ka miskiin siiyo 25 sanadood soonkood baa lagu leeyay maxaa yeelaa intaad kari karto soo soon sidaad u kari karto oo soo soon sanad ba intaad kari karto waa bil ba intaad kari karto ilaahay wuxuu fattaqullaha mastada'tu waa deyn ilaahay oo ku saaran marka deynta ilaahay sidaad isaga bixin karto ila dad badan baa soon sunnaa sooma isniinaha khamiisaha ayaamaha fadliga badan aynu garanayno marka sida dadka muslimiintiiba soonka sunnaha ay u soomaan faralka deynta kugu ah aduguna soon su'aashan kale odhanaysa anigoo ixtikaaf ku jira ayaan xaaskaygii u galmooday haddana masaajidkii baan iskaga noqday waa habeen bisha ramadaana waxaynu arkaynaa inuu u jeedo ictikaafkii mutataabic ahaa oo qofku had iyo jeer markuu doonayo inuu ictikaafo ramadaanta laba siyood buu ictikaafaa mid mutaqatica iyo mid mutawaasila ama mutataabica mid waa ictikaafka googo'ana markaad masaajidka timaadaba ictikaaf baad niyoon doonto midna waxa weeyna 10ka dambe ama 20ka dambe aad isku adkaysa inaanad masaajidka ka bixin ku ka hadlaya waa ka weey marka isagoo masaajidka ku jiro xaafadii tagay waxba ka soo cunayay islaantiina cunadii buu raaciyay marka muxuu ictikaafkii noqonayaa ictikaafkaas uu ka kala go'ay waxyaabaha buriye ictikaafka kala jara ayuu ka mid yahay jimaaciya galmada xaas ilaahay baana quraanka ku sheegay wuxuu wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masajid dumarka waxba ka dayna idinkoo ictikaafka ku jira su'aashan kale irbadii suuxdinta ma la isticmaali karaa kolku qofku sooman yahay ee ilig laga saarayo iligiisa ma laga saari karaa waa laga saari karaa irbadii suuxdintana waa la isticmaali karaa laakiin waxa dareeraha waa inaan liqindee haduu yahay biyihii dhakhtarku ugu nadiifinayay iyo haddii ay tahay dhiigii waxyaabaha haddaad liqdo soomkii wuu jabayaa sidaa daraaddeed soomkii in lagu yoolbaadhan maahe haddaad xamili karaysa habeenkii ka dhigo haddaanad xamilayninna inuu maalintaa iska afuri karo kol haddii dhibaatadaadu ilaa operation kaa gaadhay su-aashan kale odhanaysa walaalkay wuuna biiliyaa laakiin waa soomaa ma salaado jawaabtu waxa weeye sax maaha salaadaa ka sii weyn soomka culimada qaarkoodna waxaabay qabaan qofku haddii aanu soomin inuu gaaloobayo daliilo badan bay usoo qaadanayaan hadduu gaaloobayna dee soomkiisii iyo cibaadooyinkii kale toona kama ansaxayaan qayb culimada ka mid abaaba sidaa ku tegayna sidaa daraaddeed waxaad adiga kaala gudban biilka uu ku siinaya ha ugu habranine in aad dacwad u fidiso ila ilaahay wuxuu wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir calayha ehelkaaga salaada far aduguna ku adkow quu anfusakum wa ahliikum naara naftiini ehelkiina naarka nabadgeliya marka inaad u gurmato oo aad muslaxdo oo aad barido oo cajaladaha iyo dhagaysiiso culimada wacdigooda oo aad tidhaahdo yaad noqonin qof hoosta gun la dhaaminayo walaal sida aad u soontay waad ku mahadsantahay salaadana raaci oo qofka in hanuun la hadii la siiyo ayaa ka fiican in hadiye la siiyo hadiyadu ku siinaya hanuunka siinaysa ka qaalis marka saasaad yeeli laakiin adiga dambi kaama saareen oo xilka ka saareen waa wacdiga iyo waanadaas macnaheedu ma aha taariikh salaadkaasi hadduu ku beelinayo inaanad biilkiisa cunayn waad iska cuni doontaa masaariifta uu siiyo waa qaraabo ee waad xidhiidhin laakiin wacdiga iyo waanadaas ayaad la ogaan doontaa qaraabo xidhiidhintana waxyaabaha ugu fiican waxa ka mid ah dadka diin iyo dacwad iyo hanuun in lagu la dadaalo qaraabo xidhiidhinta koobaad ee ugu sii wanaagsan waa taa wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ محمد الله سبحانه وتعالى هكو بركيه عمرك عافمتك الله كو سياديه جزاك الله خير الجزاء توقدن بيسا waxa weeyaan dad badan ayaa waxay soo dabadeen ducooyin dad badan baa xanuunsanaya inta dhiin dhimatay ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistaada ugu ducayso ta kale 3-4 dhalinyaraba ila soo xiriirayo waxay sheekhu hanoogu duceeyeen inuu guurka ilaahay noo fudaydiyo waalidiintana ha nagala hadlo oo guurkii qaalib uu noqday dubay baa la tagayaa dahab baa la soo iibinayaa wixii way nagu adag tahay برشيخ ودي والدين تنقل هذا واي تيتوبي ولي دليرado Soomaalidu waxay yiraahdaan wax afka walaalka ku wanaagsan baa jiro afkaaga aan ku wanaagsanayn marka hadii ay yiraahdaan culimadii iyo cuquushu ha noo hadlaan wax wanaagsan way
inaguna waxaynu leenahay ducada ka hor hala jabiyo guurka hala fududeeyo meelaha guurka la fududeeyo sinada yaraata mas'uuliyaduhuna way bataan macnaa inuu dadku dad majuuraho mas'uuliyana noqdo tarankuna wuu bataa meesha had iyo jeer sinada ku badatana tarankuna wuu yaraadaa macsiyad iyo cuduraduna way bataan mas'uuliyaduna way yaraataa caalamul islaami daraasadaha lagu sameeyay dadka ugu faqiirsan baa ugu guur badan wadamada ugu faqiirsan ama ugu duruuf adag baa ugu guur badan daraasada mar aan akhriyay mawduucana wax ka diyaarinay duwal al-arabiya laba wadan oo jaar ah oo midna iska ladan yihiin baxaga maalka midna aad u dhibaataysan yihiin cirkiga dhulka isu jiraan waa Lebanon iyo Falastiin dhalinyarada boqolkiiba 95 ba xaas leh 5 baan xaas lahayn Lebanon dhalinyarada boqolkiiba 90 ba bilaa xaas oo 10 ba xaas leh taasina waa ta keentay inuu Ilaahay barakeeyo iyadoo intaas boqolaal kun oo qof yahuudu dilayso inay dad dhaqan u yihiin oo malaayiina Ilaahay waxa kale uu ku barakeeyo ilaa uu ka warhayaa dadkiisa waxa dhashana wiilal baa u badan adduunyada dadka dhasha habla u badan laakiin iyaga wiilal baa Ilaahay ku arsaaqa waa bedel ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه marka waxaynu leenahay inaga inaad u fiirsatay mooyaan miyigeena iyo magaaladeena miyiga guur badan hada waa meesha iska xayraanka ah ee xoolaha yar haysta ee iska fuqarada ah aan xushiya xaabada shidaya habluhu maba gaadhaan 18 jirba markiiba midba qafaalanaya guursanaya baalba dhaweed waxay ku cabanayeen hablihii de magaaladii bay naga galeeno dabakaayooyin bay furteen dad uu noo soo celiya miyiga ku guursanay marka inantii xagga markay joogto suuqeedu waa xaami halkana waa istul bixeen marka waxaynu leenahay waxyaabaha ugu badan ee caqabad ku ah waxa weeye guurkii wax xoolaha maalka odayaashii halkan ay soo fariisanayaan waxay doonayaan yarad iyo gabaati markuu yariyo $3,000 sodohdina waxay doonaysaa isbarasho iyo fujaano iyaguna $2,000 inantiina waxay doonaysaa dahab $5,000 iyo filinjar 10 mariinkii iyo casuumadii iyo wixii kale warkooda daa xageebuu ka keenaa waa qof shaqaalaha $500 qaatay dollarka waxaan ugu xisaabinay wala inagu saliday oo wuxuu inoo noqday waxaynu wax ku binaynaa buu inoo noqday marka meeshii waxa ka soo baxay macallinkii quraanka dhigay iyo qofkii shaqaalaha caadiga ah dawladda u shaqeynayay ayaa waxa laga doonayaa waxa qof dadka kale laga doonayo waliba dadkii diinta lahaa ee quraanka akhriyay tasbiixsanayay ee tafsiirayay baaba ugu sii daran inantii xijaabnayd marka hore way iska khushuucsantay mar alla marka la meheliyaabay soo karaar qaadanaysa marka la meheriyo ayaa leedahay waxa doonto ah wada ruux dumarun baan ahay wixii heblaayo la siiyay anigana halaysi Soomaalidu waxay dhan karis xuniyana wax kula haday dumarkii sodohoy iyo hablu guurka qaaleeyaan waxa weeyaan waa guur la'aan marka inamada si dhinka lagu dalacay laga dabciyo garbay u leeyahay meherka loo jabiyo ducay dadku ku heli doonaan kharashkana aynu iska yarayno xaasleyduna haynoo badato dhalinyarada dhacdhacaya ama sinaysanaya ama tahriibaya ama iska ciyaaraya bilaa macnaa ku socdaana marka gabadhay ay ku xidhantay mas'uuliyad buu qaadi doonaa oo qof aynu wax ku halaynaa buu noqon doonaa waa dhalinyaro intaas meena idinku filayn inta Allah inagu anfaco waxaynu ku soo khatimi doonaa ducada dambigeena Allah dhaaf kii waalidkeena Allah dhaaf cibaadooyinkaynu wadnaa kala duwan Allah inaga aqbalo soomka salaada qiyaamka quraanka ducada dhikriga cilmiga intaba Allah inaga aqbalo qalbigeena quraanka Allah ku qooyo qalbigeena quraanka Allah ku furo وي قرآنك النور كل نور قيامه وشفاعة قاعدة أدوية ذا كعمل فلا تطبيقية الله ينقدر حلو وحين هينا الله ينبركه وحين كبقينا الله ينقبض بادي نبت قلية إيا النعمة إيا برارها إيا برواقضة إنه هيسننا الله ينوسيادي انتنا ظروف هيسننا ظروفتا الله كدلقا انت قول باهن ويلالي قرنبك وحلال الله كوارساق وحلال الله كوارساق وحلال الله وفضو ذي انت عذر كعبنيس عافمات دقدقه الله سي عافمات دقدقه الله سي انت عرور لان كب عبنيس الهي عرور وناغسن بركه الله كو ارساق
muslimka meelo badan baa lagu dhiban yahay dadka ilaahay dhibka ka dulqaado dadka walaalahan Falastiin ay kamid dhibka Allah ka dulqaado cadawgooda Allah jibiyo nasrigiisa ilaahay hasiyo nasriga Allah hasiyo dhammaanteen muraadiyaynu wada leenahay muraadkeena aan macsiyahayn Allah inagu arsaaqo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada Allah inagu la rafiiqi jannada kuwi kula rafiiqa Allah inaga dhigo kuwi waaftaxa jannada ku daba gala Allah inaga dhigo kuwa Allah inaga dhigo naarta Allah inaga nabad gali cadaabkiisa Allah inaga badbaadi jannadiisana Allah inagu casu cisiyo sharafna Allah inasiyo وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك